point of order waxaan u qaatay soo dhaafan jaboontiyada iyo madaxtooyada arrinta xaaladda keentay ee istaafyada isma garanayaan colol kala duwan meeshaasaan rabaa inaan qofka soo dhex galana lama garan karo siday ila tahay ilaalada ahaa maba ahayn in taliyaha aba jooga ceelgaab aba iyo wasaaradda wasiirka ku-xigeenka la soo fadhiiso hadiiba qaabkan wuxuu dhaxaayeen laakiin point of order waa maadsan tahay waxaan u qaatay arrinta xaaladda abuurtay baan amarkaan u bixiyay taas ayaa horta muxuu ahay mudane gudoomiye waa ogolnahay amarka inuu ku dhaqmo laakiin ka xildhibaan ahaan guddoonkiina isku xayndaabaan deganahay ma aha shaqo habeen hore istaafkaygu wuxuu ku bariyey bannaanka horeyna waxaa loo dilay jooga ciidanka xoogga dalka ayaa suuqyaraha lagu dilay berri ka maalin xaalad abuur iyo xilliga kala guurka hadday wax dhacaan khadiijo maxamed iyo raadiyaha laga wada naadiyo ma qaadi karo waxaan jeclaan lahaa ama dhaqaale ahaan looga gooya ama idinka soo gatanna dhaha station noo sameeya aan ku wada soconno taliska iyo wasaaraddana point of order waxaan u qaatay arrinta xaaladda keentay ee istaafyada markuu yimaado area SY meeshaasaan rabaa inaan madaxtooyada uu ka soo gudbo siday ila tahay staafku ku dejiyo maba ahayn in taliyaha ama xarunta iyo wasiirka